الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه وخليله المبعوث رحمة للعالمين بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صعقا، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حمدا لله، إلهي baan ku mahadinaynaa masaajidka jaamica ee nagu soo kulmiyey. wallaahi kulligeen waxaan doonaynaa maaragtaana ilaahay inaan u dhowaano. a'immadeenna iyo culimmadeenna akhyaarta ee khayrka badan leh masaajidka ay nagu soo dhoweysay iyo majmaceenna barakaysan, keennaa hadlaaya iyo keennaa lala hadlaaya, inteennuba waxaan u baahannahay ilaahay inaan u dhowaano, inaan ilaahay u dhowaano, oon aakhiradeenna u diyaar garowno, oo adduunyadan aan ka qaadanna diin waxaan ahay ninka ka qaata u khasaaray. nolosha adduunyadu way bilaabantaa wayna dhammaataa. ilma dhashay haddaad maqasho noloshii adduunyada ayaa u bilaabatay. hebelow dhintay haddaad maqashona noloshii adduunyada ayaa ka dhammaatay. aakhiraduna way bilaabantaayo iyadu dhammaad ma leh. haddaad maqasho hebelow dhintay noloshii adduunyada ayaa ka dhammaatay, aakhiradii weyni ka badnayd baana u bilaabantay. hebel baa go-ay. innaku markaan maqallo markaaba waxaa la isweydiiyaa daday adduunye muxuu ka tegey? caalamka samadoo dadka khalqiga ku noole malaa'igtuna waxay isweydiiyaan hebel maxaa ka soo horreeyey. innaku markiiba waxaan isweydiinaynaa markaan maqalno hebel baa go-ay muxuu ka tegey, laakiin malaa'igtu waxay isweydiinayaan maxaa ka soo horreeyey. nebigeennu calayhi salaatu wasalaam waa ka inoo sheegay lahaa, meydka marka la qaadaayo buu nebigu yihi degta la saarto ee nacashka la saaro, naftaa la sii waday hadday ahayd naf wanaagsan oo ilaahay taqaana oo adduunka dusheeda ilaahay amarkiisa qaadatay hadday ahaydna waxay leedahay anuwan liibaanay horay ii geeya bay leedahay, qabrigayga horay ii dhiga. haddii naftaa la sii wada ay ahayd naf ba-an oo xun oo mujrimada oo dembi badan oo shar badan hadday ahaydna waxay leedahay tani way khasaartay, halkee baad ku wadaan? hadalka naftaasi ay leedahay cid kasta ayaa maqlaysa buu rasuulku yidhi, ilaa jinkiiyo insaga un baanan maqlayn. hadday labadaa la maqashiin lahaana dadku ismay aasayna way argagixi lahaayeen buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam. maanta waa adduunya, berri waa aakhiro weeyaan. maalin buu nebigu arkay saxaabadiisa iyagoo meel fadhiya oo sheekaysanaya, laanna saxaabadu bashar bay haayeen. cabdilaahi bni cumar bnukhadaab baa lagu yidhi, asxaabta nebi maxamed may qusli jireen? haa, way qusli jireen buu yidhi, laakiin iimaanka qalbigooga ku jira ayaa buuraha ka weynaa buu yidhi. malaa'ig may ahayna bashar bay ahaayeen, sida innaku aan u shaqaysanay u shaqaysanayeen, sida innaku reereeyo ubad aan u leenahay si ka badan bay u lahaayeen, laakiin qulubtooda waxaa ku weynayd ilaahay baa ku weynaa, diinta ayaa ku weynayd, aakhirada ayaa ku weynayd. maalin maalmaha ka miduu nebigu arkay jamac asxaabtii ka mid oo meel iyakoo fadhiya markaa ay sheekaysanayaan oy dhoolla caddaynayaan ee qosqoslayaan. markaa buu nebigu ku yidhi, low aghartum dikra haadimi ladaat la shaqalakum cama araakum canhu, yacni almowt. haddaad macmacaan dumiyaha xasuustiisa iyo sheekadiisa aad badsan lahaydeen buu nebigu yidhi, qosolkaa aan nigu arkaayo waad ka mashquuli lahaydeen buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. haddii
asxaabtii nebi maxamed ay u baahdeen mar walba inuu nebigu dul joogo uu ilaahay xasuusiyo uu dhimashada xasuusiyo uu aakhirada xasuusiyo innakoo maanta zamankan joogna zaman alfitan zaman fitanta iyo mashaakilka ay bateen iyo fasaadku meel walba uu yaallana inteen uga baahi badannahay asxaabtii nebi maxamed in mar walba layna xasuusiyo ilaahay la kulankiisa aakhire inay jirto in lagu xasuusiyo inuu qabri kaa dambeeyo in lagu xasuusiyo waa arrin lagama maarmaan oo kulligan aan u wada baahannahay haddaad badin lahaydeen buu nebigu yidhi macmacaan dumiyaha warkiisa iyo sheekadiisa qosalka aan nagu arkaya buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam maad haleesheen maanad qososheen waad ka mashquuli lahaydeen buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waagii barye iyo gobolkii dhacaba maalin kasti waxa uu bini aadamku u sii dhowaanayaan waa qabriga weeyaan qabriguna marka uu hadlayaa wuxuu leeyahay anu gurigii keliga ayaan ahay anu gurigii darxiga u saaxiibka ahaa baan ahay anu gurigii madoobaa baan ahay waxaad iga shaqaysato uunbaad isoo dhiganayso iga heli doontaa nin reer madiino ansaariya janaasadiisii buu nebigu raacay calayhi salaatu wasalaam markii qabrigii la geliyey iilka la duldhigay ayuu nebigu saxaabadiisii ku yidhi istakfiruu liakhiikum wasaluu lahu tathbiit fainahu al'aana yus'al buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam walaalkiin ilaahay dembidhaaf u weydiiya su-aashii qabriga hadda la weydiinayaaye qowlka xaqa in lagu sugana ilaahay u weydiiya haddaa su-aashii qabriga la weydiinayaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam oo su-aasha qabriga waa maxay waa saddexdaas su'aalood weeyaan man rabbuka man nebiyuka maa diinuka mar allii marka qofka innaku aan dhigna qabriga een ka imanno ka u dambeeya ka soo dhaqaaqaya shanqadhiisa la maqashiin buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laba malag baa u iman doonta alfataanaan deedna way fadhiisinayaan qofka saddexdaas su'aalood bay qof walba weydiinayaan hadduu boqor yahay waa la weydiin hadduu caalim yahay waa la weydiin hadduu maaragtaane weli yahay waa la weydiin hadduu faasiq yahay waa la weydiin bashariyadda adduunyada ku nool oo dhan saddexdaas su'aalood waa lala sugi doonaa man rabbuka ayaa ku rabbaynayey ayaa ku quudinayey ayaa ku arsaaqayey ayaad caabudaysay ayaad baryaysay ayaad rajaynaysay ayaad tala saaranaysay maa diinuka diintaadu maxay ahayd dhaqankaagu muxuu ahaa maxaad dhaqan ka dhigatood ku dhaqmaysay man nebiyuka ninka laynaga soo dhex saarayna maxaad u taqaanay marka qofkii muuminka adduunyada dusheeda ilaahay garanayay ee iimaanka qabay ilaahay baa yidhi yuthabbitu allahu aladiina aamanuu bilqowli athaabiti fi lxayaati addunya wa fi alaakhira wa yowma yaquumu alashhaad ilaahay tabaaraka wa tacaala qofka muuminka iimaanka qaba saddexdaas su'aalood ee qabriga qof walba lagu weydiinayo ilaahay baa qofka muuminka ku sigi doono ilaahay baa jawaabta haleeshiin doona walaalayaal ilaahayna haynagu sugo allah haynagu sugo allahna inoo dhib yareeyo saddexdaas su'aalood baan qof kasta la weydiin doonaa marka muuminkii adduunyada dusheeda ilaahay kaga baqaayay ilaahay maad arkin laakiin rumee makhluuqaa kuu muuqda makhluuqaad arkaysaa laakiin khaaliqa lama arko adduunka inta la joogo jidhkaad arkaysaa laakiin ruuxda lama arko adduunyadaad arkaysaa laakiin aakhirada lama arko inta adduunka la joogo manaaficda lacagtaad arkaysaa laakiin manfacadda salaada iyo manfacadda thawaabka ma arkaysid waa qayb aakhira taa lagugu tusin doonaa shayga maanta mushaahadaadka inoo muuqda ayaa hadhow toola noqon doona muqayabaat wax kaa qarsoomay buu noqon doonaa shayga qaybka maanta kaa qarsoon waxa uu noqon doonaa wax hortaada yimaadood aragto ayuu noqon doonaa maanta adduunyada inoo muuqato aakhira inooma muuqato laakiin qofku markuu adduunyada ka intiqaalu dhinto laqad kunta fii ghaflatin min haada fakashafnaa canka ghidaa'aka fabasaruka alyawma xadiid waxaa la odhan doonaa daah iyo xijaab ayaa kaa saarnaa noloshan laakiin maanta daahi iyo xijaabkii kaa saarnaa waan kaa qaadnee araggaaguba waa xadiid baa qofka la odhan doonaa oo adduunyadii baa noqon doontaa qayb bay noqoni doontaa ciyaalkiisii iyo dumarkiisii iyo daarihiisii iyo adduunyadiisii iyo lacagtiisii waa laga qarini doonaa waxaa markaa uu arki doonaa camalkii adduunyada uu soo qabtay hadduu shar ahaana wuxuu arki doonaa cuquubadiisii iyo cadhadiisii hadduu cuquubadii ilaahay cadhadii buu arkayaa hadduu khayr ahaana thawaabkii ajarkii iyo khayrkii iyo xasanaadkii buu arkayaa adduunyadii waxay noqonaysaa wax kaa qarsoomay aakhiradiina wax ku muuqatay noqoni doontaa markaas marka ilaahay tabaaraka wa tacaala adduunka inta aan joogno lama arki karaayo laakiin aayaadka ilaahay baa la arkayaa wa min aayaatihi alleylu waannahaar habeenku waa aayad weeyaan aayad waa maxay macnaheegu waa calaamo ilaahay jiritaankiisa lagu garanayo maalintu waa calaamo ilaahay jiritaankiisa lagu garanayo guga iyo jilaalku waa calaamo ilaahay jiritaankiisa lagu garanayo
noloshiyo geeridu waa calaamo ilaahay jiritaankiisa lagu garanayo lab iyo dhidigu waa calaamo jiritaanka ilaahay lagu garanayo faqriga iyo qinadu waa calaamo ilaahay lagu garanayo jiritaankiisa caalamkan siduu u socdo waxaad ka dhex arkaysaa in ilaahay nidaamkiisu caalamka u shaqaynayo laakiin nidaamka ilaahay caalamkan uu ku maamulayo waa nidaam qayb oo la inaga qariyay ma arki karayno sida ruuxda jirka ku jirta ishaadu aysan u arki karaynin gacanta dhaqdhaqaaqeega arkaysaa dhegta maqalkeega arkaysaa lugta socodkeega arkaysaa madaxa dhaqaaqiisa arkaysaa laakiin ruuxda bini aadamku ma arki karaan laakiin gaal iyo islaam halka markuu qof ka dhinto intuba qofka ka dhintay way u ooyaan haddaad tiraahdo maxaad la ooyay waa kan qofkii gacan kama gu'in lugna kama gu'in dheg lagama goosan oo dhan yahay jirkiisii oo dhan uu dhan yahay maxaad la ooyay haddii la yidhaahdana kulligood waxay leeyihiin shaygii qiimaha lahaaba meesha ka baxay shayga qiimaha la waa maxay waa ruuxdii oo ruuxda maad aragtay may si aad u garanaysaa qalbiga ayaa garanaya alqalbu yudriku alxaqaa'iq bay yidhahdeen culammadu qalbiga ayaa xaqiiqada soo taabanaya shaygii qiimaha lahaa waa ruuxda weeyaan ruuxdu waa qayb waa lagaa qariyay ma arki karaysid laakiin inay jirto waxaad ku garanaysaa xarakaat alacdaa caalamkan aad arkayso dhan waxa weeyaan waa kal jasad weeyaan nidaamkan caalamka oo dhan waxa ku hoos jira nidaamka ilaahay iyo nidaamul qayb la yidhaahdo marka muuminkii iimaanka qabay intuu adduunyadan joogay buu ilaahay cilaaqa la lahaa su'aasha u horraysa marka la yidhaha man rabbuka waxuu yidhi aniga rabbigay waa allah buu leeyahay meheradaydu ima rabbaynayn allah baa i rabbaynayey dukaanku ima rabbaynayn ilaahay baa i rabbaynayey beertu ima rabbaynayn ilaahay baa i rabbaynayey dowladdu ima rabbaynayn ilaahay baa i rabbaynayey xooluhu ima rabbaynayn ilaahay baa i rabbaynayey anu kuma noolayn waxaan adduunyada dulya alloo dhane bal amarka ilaahay baan ku noolaa laakiin su'aasha dadka maanta haddii mikrafoon la qaato la yidhaha war maxaad ku nooshahay nin walba halka ay asbaabtu ay ka soo gasho dakhligiisu halkuu ka soo galabuu markaaba kuu sheegi mid muxuu ku odhan wallaahi meherad yaroo halkan ku taallaan ku noolahay mid wuxuu ku odhan ciyaalkiibaa dibadda u baxay oo kuwaasaan ku noolahay haddayna baxeen maba noolaaneen mid muxuu ku odhan beer yar baan ku noolahay beer mid wuxuu ku odhan aqal yar baan noo karaysan oo ku noolahay reer jibuutina waxay yidhahdaan letaraadkii baan ku noolay letaraadkii macaashkii may waa inaad tidhaahdaa ilaahay amarkiisaan ku noolahay annaku alladii yuطcimunii wayasqiinii waidaa maridtu fahuwa yashfiinii والذي يميتني ثم يحييني وأصول الإيمان أصول العقيدة وأين قفك قرطاع دودا هذا استعمال ليسو شفاء الله مسعته شفاء حق إلهي بكتما دا دكان كاقي مهرد هذا يسوق قاقا وأسباب ويان لكن رزق حق إلهي بكائمنا يا وأين أتقرتا ربك والله ويان معبودك وإلهي ويان كعبادة متيستي وإلهي ويان كبريادة متيستي وإلهي ويان كرجاها متيستي وإلهي ويان كعبسدة متيستي وإلهي ويان كليجي رجي كليجي كعبسو كليجي بريو بايدادا كليجي وشيغو ربي جاي والله دين تيدنا الإسلام رقم كيجو إسلام وحكى لعنكم الرقمو وحكى لما آمن سني دين بانو نولهي دين بان برانيا دين بان كشقينيا قفك دين بان كجعلانيا دين لعنا وكنا عيا من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان برسول كويري نكا هدو وحبحن إلهي درتي أبحن هدو وحمنعن إلهي درتي أمنعن هدو عد جعلان إلهي درتي أجعلان هدو عد نعي إلهي درتي أنعي كاس إيمانك وعندما ما يسترتيب النبي قول عليه الصلاة والسلام وأين أدنقى قف لله أنه لو تاريخ الصحابة يقول على سيرة علي بن أبي طالب ننبايد هل من مبارز وحل معركة مسلمين تلو حقا أي جوغان قال دون حقا أي جوغان أيو يري ننكي ugu itaalweyna gaalada ayaa soo dhaco yiri hal min mubarizin ayaa macrakada igu soo dhacaya Ali baa u dhacay radiyallahu anhu Ali ibn Abi Talib ninkii intuu qabtay buu lagday markuu seeftay qaatuu yiri gali markuu isidina Ali ibn Abi Talib oo ninka kor fadhiyay buu qandhuuf wajiga lagaga tufay markaasuu Ali qandhuufa lagu tufay wajiga lagaga tufay gaalkiina dhulku jiifaa Alina seeftii buu haystaa qandhuuf baa lagu tufay Ali oo sareeya
وككعي علي صحابتي وحي كويرادن يا علي ما حد وككعلي بالقويري قال لمن إنك الدين وذولد قال لما يسي أديكنا قنوفك وقلت فيه وارمارك ور إلهي درتي بانودا قال لما يي هذا عرا يسوق شيء بيقول النفط إذا درت دينا نودنا كبقي بيودي لله يد وحن قبن إلهي درتي بانو قبن عدة جعلان إلهي درتي بانو جعلان عدة نعي إلهي درتي بانو نعي وحن بحن إلهي درتي بانو بحن وحن خيرا شاق إلهي درتي بانو شاقي خير كان دقيسن إلهي درتي بانو دقيسن وين نقطة تقف دينية ودين تو أي حكمين يسو سج سؤال قبرك وكل بيراتو ترادو أنا الدين تدوا إسلام مركز النبي محمد عليه الصلاة والسلام بالله هركاني أول أورندونا محادو تقاني شخصا مركز أموم منك إليه هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام صدح دا سؤالات مؤمنكم مركو قبرك كجوابه أيا سمد الله قد واقي الله أورندونا أن صدق عبدي أدون كيجي رمبو شاقي أفرشوه من الجنة فراش جنة كسوق هذا وققلا والبسوه من الجنة در جنة كسوق هذا وحدا وافتحوا له بابا إلى الجنة البابنا جنة وقفر جنة هل كهكذا وذيب الأورانيا دول كات كو عليسي ميت دول كان كو أصني منها خلقناكم وفيها نعيدكم هل كات كو أصني ودول كدحدي سويان إن كتاب الأبرار لفي عليين جنة وفوق 7 سماوات هل كاس قفكم مؤمنكم جنة سيكدا ونيا sida inagu ba aaladan yar imika aan haysanay mobilka ijaabada aad ku haysatid qofka adduunyada halka ugu dambeeyay jooga maqal iyo muuqaal halka aad uga daawanayso qaaradda Ameerika qofkii joogay ayaad adigu halka jooga maqal iyo muuqaal aad ka wada hadlaysaan muuminka qabriga dhexdiisana nabiyullaahi Muhammad alayhi salaatu wasalaam ayaa inoo sheego yiri qabriga dhexdeeda daaqad looga furaya halka buu ka arkayaa jannadiisa iyo naciimtiisa iyo xurul cayntiisa markaasaa la odhan doonaa iska seexo qabrigu waa meesha muuminku ku seexdo weeyaan maxaa qabriga loogu dhex seexanayaa laana jannada dhexdeeda hurda ma jirto annawmu akhul mawt wa ahlul jannati laa yanaamuun baa nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam geeridu dhimashadu hurdadu waa geerida walaasheed ahlul jannuhu jannada hadday galaan ma seexanayaan buu rasuulku yidhi adduunyadan maalintiina waad foofi waa macaash kasbi xalaalaad ka soo shaqaysan waad cibaadaysan waad soo daali habeenkii baad yar seexan si daalka lagaaga bi'iyo ahlul jannuhu maxayna la seexanaynin waxay la seexanayn waan kuu sheegayaa laa yamassuhum fiiha nasab wamaa hum minha bimukhrajiin baa ilaahay yidhi ahlul jannuhu jannada haddii ay galaan jannada dhexdeeda wax tacab oo daal oo soo gaarayaa ma jirto jannada ay galeenna kuwa ka baxaya ma aha marka ma badaalayaan ma walwalayaan ma walbahaarayaan ma gaboobayaan ma dhimanayaan ma bukoonayaan waxay tabanayaan ma jirto waxay niyadda ku qabtaan waa la hordhigayaa marka wax daalinaya oo ay u baahdaan inay seexdaan si daalku uga baxo maba jirtaba marka meesha muuminku ku seexanaya waa qabriga weeyaan ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون وكي إلهي جل وعلا في سورة ياسين إنه يقول شيء سورة أفوفينا با إلهي يري إسرافيل با سورة أفوفايا لأن نلقى كالصبح دونان لأن حق إلهي بالله سؤرين دونا مرقى ساقفك مؤمنك إيمانك لها وحولي يحي وما حيب لا يا هرددي نقصو كعيي وان جيفني وان هردني هردد محان نقصو كعيي بولي يحي مركو أرقى خلقي وبنك قيامة سدا أسكو دحسو عدنا وحولي يحي ما أنت ومالنتي النبيد أي نويا بوهين إلهي الرسول شيسنا الروم بين نوش يكتبوا لي ما أنت ومالنتي لنويا بوهي يوم القيامة ويان مركا نولشان أدويدو ومالني يهبين نولش قبرقو وهبين نولش قيامه هنا ومالن كليا نولش أدويدو وجعلنا الليل والنهار آيتين وآية لهم الليل نسلخ منه النهار بايل هيري آية الليل آية النهار نولشان أدويدا أن كن نولهي ومالني يهبين مالنتين واد فوفيسا هبين كينا واد نسانيسا واد سيحانيسا قبرك هدين لقلنا وهل هبين ويان صبيحتها يوم المحشر وبرق يقولنا ومالك قيامها ويان يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر
خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر بإله هيري نعم الدنيا انت اللي جوجو واحد جوجي سوا مالين يا هبين قبرك هدي لغو دغنا وهبين كليا هبين كاسو النبي نو شيغو يري قبرك وا لبا ميد ويان اما وروضه من رياض الجنه اما حفره من حفر النار مؤمنكين بربرها جنده كميدا لوغا دغيا قالكينا waxa looga dhigaya godgododka naarta kamida looga dhigaya dina uu hurda oo 70 sano adduunyada uu soo daalay ayaa la leeyahay halka ha ku daalo ha ku nasto min aadam alayhi salaam laga bilaabo ila joogadeena wixii adduunyada bini aadam soo maray caalamul barzakh bay ku jiraan inna way hurda way nasanaysa oo waxa qabriga dhibaato kuwa kale ku haysta war uma hayaan way hurdaan maalinka qiyaamaha suurta la afuufo bay qabriga ka soo bixi doonaan laysa ala ahli la ilaha illa allah وحشة في قبورهم ولا حسرة في نشورهم وكأني أنظر إليهم وهم ينفضون تراب على وجوههم ويقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور نبي عليه الصلاة والسلام وكيلها دتك أدونك دوشي لا إله إلا الله إهل كيغا النقضة الله ينقدقو قبرك مركي قلان كوكليوب مايان maalinka qiyaamaha markay soo baxaan xasrad iyo nadaamo iyo murug galiya arki maayaan waxaad moodaa buu nabigu inaan u jeedoon arkaayo ayagoo qabuurihii ka soo baxay oo ciidda intay iska hurgufeen ay leeyihiin alxamdulilaahi alladii adhaba canna alxasan ilaaha waxaan ku mahadinaa naxdintii murugtii annaka naga qaaday rabbigay waa kii dhaafitaanka badnaa ee shakuurka ahaa weeyaan ee afcaasha wanaagsan ee addoonku la yimaado raalliga kaga noqday weeyaan لأنه يصوب حيان يوم القيامة ما لنت سرجوجة ويوم قرآنك يوم بوشيك هبين مشيقين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم الجمع يوم التغابن يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم التغابن يوم الطامة يوم الساخة habeen ma maqlaysid habeen ka doondoon waa kaas qiyaamaha markuu ilaahay ka waramayo waa maalin weeyaan habeen male waa maalin kaliya wa fi yawmin kana miqdaruhu 50000 sana yawma idin tu'radun la takhfa minkum khafiyah yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh yawma ilaahay tabaaraka wa ta'ala yawmkaasina quraanka ilaahay noogu sheegay waa 50 sanadood ibn abbas radiyallahu anhuma مفسر قرآن كوحو كفسروا يدي أفرتن كونو سنة ولا جوجي توبان كونو سنة حسابتها كل ما ندون تبو يدي أفرتن كونو سنة ويا سيد الله تاجنان دونا توبان كونو سنة حسابتها كل ما ندون نين عربي ورير بادية أيا سرك عير يا رسول الله ما لقى قيامة خلقك أيا حسابي دونا مرقا سوري إلهي با حسابي دونا ربك حسابي دونا مرقا نكي عربي انتو سيجي استيبو يدي نجونا ورب الكعبة كعبة ربي جاي يا كود دارته وان بدبان نبودي وان نبض قلبي بودي مرقابو النبي يقول صنعوا سيادو كنا نبض قشيبو كيدي بلي شك وعد وكريم إلهي وكريم هذو دونوسك كايا عفين بودي معيد باسكا قبصان يسيبو يدي وكريم كريم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم بنبي إنك مدى مجرو هدو جران أبو رسول كل أي ربي جيبوا قيامها الله كل مدونا الدونك يا ربي جي مال انت عد وكلا فعلين يسا مجرته لغة عربية لغة هذا الله يعني حاجة ميدكتو ايجي عمل جيسيبو اركي حاجة بدحدو ايجي عمل جيسيبو اركي هورتيسو ايجي نارتيبو اركي فاتقوا النار ولو بشق التمر ابو نبي يقول عليه الصلاة والسلام نارتا قاشان كسميست ابو نبي يقول قاشان كي يشا تمر جيحيد وصدقاء عضو بحسان كولي نقطنا تمر جيحيد ولو بشق التمرة فمن لم يجد
فبكلمة طيبة أبو نبي قولي تمر جيح تمر إني كان هلين أبو نبي قولي هذا الكوناكسن هكو هذا كلمة وناكسن كو هذا سبحان الله وكلمة وناكسن الحمد لله وكلمة وناكسن أمر بالمعروف وكلمة وناكسن ذكر وكلمة وناكسن استغفرت وكلمة وناكسن لا إله إلا الله وكلمة وناكسن ولا القاقا مسلم قد خير كعبو الشيكتا وكلمة وناكسن منكر كوضو مدى كريبتانا وكلمة وناكسن كلمة الطيبة صدق أبو نبي قولي عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين آياتري مرقو النبي يقول يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بيتري يقول النبي صلى الله عليه وسلم مالك قيامها ضدك والله سو حشرين دونا أيكو عقاقا أو بلا درأة أو كبلاءانة أو مركز النبي يقول عليه الصلاة والسلام أيكو عقاقا كبا موتان درنا موتان قفوا البباردي سيبا كتا الله واسدي لقود علي ويان مركز عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين رقي دمر مالنتاس ما لسدح سعونيا هوا لسدح سعونيا قفك كلمونا إيجين مركز أبو نبي يا عائشة قفك أكسعود مالنتاس من نمبا ما قبض با من نقبا ما بإيجي يا أبو رسول قل هم بقى مجربوا يدي هورتي سواحة على النار تي جهنم قفك عطاء السلمي رحمه الله نكال أورنجري وحوها نن مروق بدن بوها مروق بدن سلف الصالح صدن سنبا ليدي نكاس دولك مويان عركا ما ايغين markaas lagu yiri murugtan badan waa maxay baa lagu yiri ma dadkan waxay ogaan baad adigu ogaatay baa laga yiri dadka aniga waxba igama galine taydan anigu aan ka hadlaya waxaan inii sheegayaa al mawtu fi unuqi geeridii baa qoorta ii sudan wal qabru bayti halka la dhigayana waa qabriga weeyaan wal qiyamatu mawqifi meesha la joojinayna waa banka qiyaamo weeyaan وعلى الصراط طريقي وضد الله يمرين دوننا وجدك الصراط ويان وربي لا أدري ماذا يفعل بي ربي جاي وحي يقول سمين دوننا كما ورقبي بود أنيكو أنت سو مرحلة نيكا أي سوق أي سو إسقو هذا قصل حق قصل بيودي أنو تيدا كورما يا بودي أنت نولا هاي أوهم بنولا شيء كودا ما يسمى بيودي ما أنت وأدويو بريتولا وآخر ويان عمل كاغا الله دادا عيسى محاد وضاتا محاوتا أنيقو مانتا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها شدد قيامة مرقو نبي جانو كورم عليه الصلاة والسلام أي تري يا رسول الله مالنكا سرجوغا أيا وات كي سنكر يا بي كتري من يقوى أيا كر يا بي كتري كنتم كنو صندور مرقابو النبي يقول يا عائشة قفك مؤمن كإيمان كله ee adduunyada dusheeda ilaahay ku soo adeecay waa loo fudaydin salaada faradka inta tukataan in laag baabanka qiyaamo looga dhigi buu yiri inta tukanay salaada maghrib 3 daqiiqo 12 daqiiqo 13 daqiiqo muuminka iimaan kale ee adduunyada intuu jooga ka sahay qaatay ee ilaahay tabaaraka wa tacaala agtiisa wax sii dhigtay ee aakhirada ku sii xisaabtamay ee talaabadu qaadayaba eega aakhiradiisa هذا الكنتو كسو بحين قفك مؤمنك آخرذو إيقع دقاليه سينتونن بحين آخرذو إيقع ماشو مريو آخرذو إيقع ماشا عنو السعودة ما مال آخرذ ذي إيقع داوعي سبا مسوا مال آخرذ ذي وحيط رئيسا هذا الكايقا صوبحايا ما هذا الآخرذ ذي داوعي يبا ودب إيقي سنة يهدو طولة مسوا هذا الآخرذ ذي أكوبت بعدايو دقالهم بحينايو ما دقال آخرذ ذي إكبا يبا ونآخرة كوبت بعدا يبا وما مال في عمبو يقول دعيا بس آخرة يدي بو دقالها سيقا بعينا يا ونكا قبصدا انت قوري قورتا مؤمنك او حساب تميا مؤمنك أدوية دو شيدا إلهي كسو أدعي كسو عابدي صلاة دايرة فردك انت او تكنيي إن لعك بابنك قيام الله قد دقيا dadkii ilaahay yaqaanay daraariya habeen aakhirada hortaalla iyaka aakhiradu qofka hadday hortaalla maxay ku aakhiradu kugu saameynaysaa noloshaada aakhirada maxay kugu reebaysaa ma taqaanaa waxaad doonta ku hadli kari maysid waxaad doonta eegi kari maysid waxaad doonta cuni kari maysid sidaad doonta u noolaan kari maysid waayo dareenka aakhirada qalbiga hadduu galo
dareenkaasaa xumaanta oo dhan kaa joojinaya, wanaag oo dhan kuu diraya. dareenkaasaa qofka qabanaya. qofku inuu macsiyadda waxa kaa qabanaya waa dareenkaas. dareenkaasi waa iimaan weeyaan. iimaan ilaahay rumee aakhirana rumee. ilaahay rumee aakhirana rumee waa labada nebiyadu dadkay ugu yeedhayeen. nebi kastoo adduunka la keenay ummadda ilaahay xaggiisuu ugu yeedhay, aakhiradana xaggeegu ugu yeedhay. waxa ilaahay kaaga raalli noqona waa iimaan iyo camal saalix. waxa aakhiradaadu ku badbaadaysana waa iimaan iyo camal saalix. maalin maalmaha ka mida ayaa nabigeennu calayhi salaatu wasalaam magaalada madiinuu soo maray. wuxuu arkay markaa saxaabada qaar ka mida aqal yaroo cariishe markaa ay dhisayeen. markaa buu nebigu yidhi maxaad haysaan? waxay idhahdeen aqalkan baa soo yar duusayo waan la tiirinaynaayo waan la dhidhisaynaa. markaa buu nebigu yidhi wallaahi anu ma arko ilaa saacaddaa ka degdeg badan buu ka yidhi. saacadda qiyaamada ka degdeg badan buu ka yidhi intaad aqalkaa dhisaysaan. malagii suurta afuufayey waa israafiil calayhi salaam ayaa buuqii qaatay buu rasuulku yidhi, foonintii buu qaatay, lugihiina u kala fidiyey. markaasuu sidaa u haystaa. idan ayuu sugayaa. idan saxaabada rasuulku hadalkaa markay maqleen waxayba moodeen inay saacaddu berri ay dhacayso oo hadda suurta lagu dhifanayo. markaasay yidhahdeen yaa rasuul allah maxaan idhahnaa noo sheeg. markaa buu nebigu yidhi waxaad tidhaahdaan xasbuna allahu wa nicma alwakiil dhahda. wallaahi markuu aakhirada kala hadlaayo, markuu jannada kala hadlaayo, markuu naarta kala hadlaayo, markuu qiyaamada kala hadlaayo, dareenkoogu wuxuu ahaa si waxay jannadiiyo naartii hadda ay arkayaan isha ku hayaan. innakana maanta maa sha allah dadka muslimiinta dareenkaasi maanta waa nagu yar yahay ilaa man raxima rabbi mooyaane. lanna qalbigan uu saamoobaa qalbigu. إن القلوب لا تزدأ كما يزدأ الحديد إذا أصابه الماء. برتا حديدك بيوه هدي تابتان دحل بيكون ريبان بيوه. قلبك بني آدم كنا دحل بو يشاء. ها قلبك دحلينا يا وحنا ديجس قلبك سامين يا وحنا ديجسنس قلبك سامين يا وحنا تكون ليس قلبك سامين يا وحنا تكفكر ليس قلبك سامين يا وأفرت قصبودات قلبك ابن هذا كسعتوين أفرتاس. أفرتاس صابات القلب بعلماء ولادان. وعاد يكتب قلبك قلاع. وعاد كهذا قلبك قلاع. وعاد كفكرته قلبك قلاع. وعاد دقيسته قلبك قلاع. قلبك دحل كم حالك قبيا. لبس شيء بعلماء ولادان لبس شيء بقلبك دحل لك قبيا. قرآن كآخر سكي سؤال الله بديو. يا آخرة وإنت بدل لا شك شيء الله حسوس الله شك أيو. labadaa maanta may nagu yarin mise way nagu badan yihiin? yaa qur-aanka akhriskiisiina waa nagu yaraaday, aakhirada sheekadeediina waa nagu yaraatay. bal sheekada aakhirada saxaabadu maskiidka intay ka qaadaan bay suuqa aakhirada kaga sheekaysanayeen. dadka muslimiinta ee zamankan joogana sheekadii adduunyada intay ka soo qaadaan dibadda ayay maskiidka dhexdeeda keenayaan. isbeddelka nagu dhacay eega. suuqa masaajid سوق المسلمين كمصلاهم بيقول علي بن أبي طالب. سوق المسلمين أسواق المسلمين تو وسدا مساجد أو كلويان سدا مساجد إله الله جوينينا يو أي زمن النبي سوقنا إله الله جوينينا يي سدا مسجد كده حديث إله الله جو عاصيين أي سوق وجينا إله الله جو عاصيين. إنك أنا زمن كنا مانتا شيء كذي دبادة تالي أي الله جاي أبا إن لك أنا مسجد كجوديهيس. نبو أركي النبي عليه الصلاة والسلام مسجد كده حديث بيله كي يبو هنا يا مرقابو النبي يقول إلهي كوما سوء اللي يبو كيري. هذا أركتام بو النبي يقول إن مسجد كده حديث بيله يبادي كي يبو هنا يا وعتر هذا إلهي كوما سوء اللي يده هذا أركتانا نن مسجد كده حديث جناعسي يتجارة كده سمينا ينا وعاتر هذا إلهي كوما بركة يده هذا. إنما بنيت المساجد لما بنيت لها. مساجد وحي لورد سيب رسولك يريد.
nolosha masaajidda taalla bay culimmadu leeyihiin ayaa la rabaa in dibadda loo saaree nolosha dibadda taalla masjidka in la keeno maaha. cahdigii nebigeenna calayhi salaatu wasalaam iyo cahdigii saxaabada dadka muslimiintu nolosha masjidka ay ku haystaan ayay dibadda ula baxeen. halkan ilaahay bay kaga baqeen, dibaddana ilaahay bay kaga baqeen. halkan ilaahay bay ku ammaaneen, dibaddana ilaahay bay ku ammaaneen. halkan aakhiraday ku weyneeyeen, dibaddana aakhiraday ku weyneynayeen. wallaahi siiraday ku taallaa. cumar binu khadaab suuqa madiine intuu gala buu odhan jiray halkan ina fadhiisiya ilaahay saacadaha rumaynee kaalaya. cabdullaahi binu cumar intuu u yimaado tufayl buu ku odhan jiray ina mari raac buu odhan jiray. xaggeen tagnaa? suuqaan tagaynaa. suuqa iyo way soo baxayeen. haddana maalin kale uu yidhi ina mari raac. haddana maalin saddexaad buu yidhi iraac. waa cabdullaahi binu cumar in cumar binu khadaab iyo tufayl oo taabici ahaa. maalkaasuu markaa dhowr cisho markuu suuqii ku celceliyey buu ka yidhi ya bnu cumar suuqa waadna geysaa maalin walba, badeecadna kama soo iibsatid, badeecadna uma iibgeysid, badeecadna ma soo baayacdid, meelaha dadku fadhiyaana nama fadhiisisid. war halkan ina fadhiisi buu halkan noogu sheekee buu ka yidhi oo halkan diinta nagu bar. sheekada saxaabadu diin bay ahayd. markaa ibnu cumar baa ku yidhi waree kaagan caloosha buuran li innamaa naqdu min ajli asalaam. waxaan u kala haynaa waxa weeyaan dadka inaan salaanno baan u kala haynaa buu ka yidhi. assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu baan u kala haynaa. waa duco weeyaan, ducadaa baan u kala haynaa. muslimiintaan u ducaynaynaa, iyaguna way noo ducaynayaan. 100 qof baan u ducaynaynaa, 100kaasi way noo jawaabayaan. waa duco laga yaabaa 100kaa awliye ilaahay intay ku dhex jirto in ilaahay ducadooda noo aqbalo. salaada muslimiinta la siiyo waa maxay salaanteennu? assalaamu calaykum, nabadgelyadii ilaahay iyo naxariistii ilaahay iyo barakaadkii ilaahay korkaaga ha ahaadaan. kii kale muslimka waxa uu ku leeyahay adigana nabadgelyadii ilaahay iyo naxariistii ilaahay iyo barakaadkii ilaahay korkaaga ahaadaan buu ku leeyahay. salaantaasaan la soo kala haynaa. 100 qof baan salaamaynaa, 200 qof baan salaanta ummadda salaamaynaa. way noo jawaabayaan. waxay garanayeen saxaabadu in salaanta muslimiinta ay la dhex mareen ilaahay intuu u aqbalo inay nabadii helaan oo naxariistii helaan oo barakadiina ay helaan. inagu bagaashka iyo badaacadda iyo adduunyada loo kala lahaa mooyaane sunnaha nebiga loo kala lahaayoo lagu noolaan lagama dhadhacsana maanta. salaantaasaa lagu dhergayaa. cali binu abi aalib inuu yimid uu ka yidhi saaxib alciyaal baan ahay, maciishadii baa igu adkaatay. markaasuu yidhi lacallaka tanaamu bacda salaati alfajri buu ka yidhi. malaha salaada fajr kadib ayaad seexataa buu ka yidhi. markaasuu yidhi mayma seexdo. lacallaka tamshi amaama man huwa akbaru minka sinnan buu ka yidhi. malaha qofkaa da'weyn markaad la socoto ayaad hor socotaa buu ka yidhi, haddana hor martaa. markaasuu yidhi may, haddana markaad ducaysanaysid ma laga yaabaa inaad labadaada waalid ilaahay dembi dhaaf aanad u weydiin? markaasuu yidhi haa. markaa birta arsaaqada kaa xidhay waa taas, labada waalid ducada ku dar buu yidhi arsaaqadu way kuu furmiyeen. meelaha innagu iminka wax ma ka egeegnaa? ya may. salaanta dadka ay salaamayaan bay risiqa ka dhex arkayeen. waalidka ducadiisay u ducaynayeen bay risiqa ka dhex arkayeen. istikfaarta ay badanayaan bay risiqa ka dhex arkayeen. salaatu duxaada ay tukanayaan bay risiqa ka dhex arkayeen. salaatu duxaada cahdigii nabigeenna calayhi salaatu wasalaam waxaad moodaysaa salaad jamaca in la tukanayo masjidka zaxmadda iyo cidhiidhiga ka dhacaya. diintan ilaahay nooma siinin keliya inay aakhiro manfacadeedu nooga bilaabanto, bal ilaahay diintan waxa uu noo siiyey inaan adduunkan iyo aakhiro aan ku dhargno ku liibaanno. marka noloshan adduunyada intaan haysano waa fursad yaanan dayicine adduunyada diin ha ka qaadanno. diintana asaaskeegu waa iimaan iyo yaqiin weeyaan. yaqiin, iimaanku waa maxay? ilaahay rumee. yaqiintuna waa maxay? aakhiradu ha kula weynaato. wallaahi hadday aakhiradu inala weynaato dhaqankeennaa toosi oo risiqeennaa xalaal noqon oo mujtamac oo dhan baa isbedeli. waayo laanna mujtamaci waxay noqonaya mujtamac aakhiro ku xisaabtamaya.
sidii labadii nin ee xadiiska nebigu noogu sheegay fi sunan nin baa nin dhul ka iibiyey dhulkii markuu gatay waa dhulbeereed buu ahaa uu falay markaa khasna dahaba markaa uga soo baxday jarra min adahab uu qaatay uu la ordo ninkii lahaaba uu keenuu ka yidhi war dhulkaad iga iibisay dahabka inta leeg baa ka soo baxee malaha waad ilowsaneeda iga qaada buu ka yidhi markaasuu yidhi may anigu kuma ogeyn adaa ilaahay kaa siiyey adaa iskale iska qaada buu ka yidhi war waxaan adigaa le iga qaado innaga zamankeenna waa maxay war waxaan anigaa le isii weeyaan teen waxaan ku dagaalamayno dhulkan anigaa le gurigan anigaa lahaa meheraddan anigaa lahaa waxaan anigaa lahaa baa isku haysannaa iyaku waxay taagnaayeen dadku markay hagaageen war waxaan adigaa le iga hoo iyo kaa qaadan maayo may ma dhici karto may adaa iska le adaa ilaahay ku siiye iska qaado may dhulkan adaa iga iibiyey malaha waad halmaamsantahay adigaa iskale iga qaado waxaan malihi anigu yahay lacagta intan leegna anigu kuma siine may labadii nin intay isqabsadeen bay maxkamadda tegeen maxay isku haystaan kan wuxuu leeyahay xoolaha nin kalaa leh ha iga qaato kanna wuxuu leeyahay war maliye isagaa ilaahay siiyey ha iska qaato qaadigii markaa qaadi fiican buu ahaa qudaada zamankan laga yaaba inay odhan lahaayeen xoolaha dawladda ale iska keena ilaa qaar baa iska fiican way jiraan laakiin kuwa da waxa iska jira dawladda u shaqeeya moogtaa xoolaha dawladda iskale iska keena halka ka baxay ninkuna ma odhan wuxuu yidhi adu maxaad leedahay ubad wiil adiguna gabadh labadaa isku guuriya labadaana xoolaha siiya buu yidhi bal fiirso islaaxu waa cajiib halkaa hadday islaaxdo waa cajiib halkaa hadday xumaato laakiin dhegayso qisad kale saddex nin baa nebi ciise raacday calayhi salaam siday ula socdeen ayay yimaadeen meel bannaanka uu dahab ku yaallo dhaymanku markaasuu nebi ciise ku yidhi waxaan waa dhayman waa dahab waa jawharad markaasay yidhahdeen noo qaad markaasuu nebi ilaahay soo diray iyo adduunya meel ma wada marta buu ka yidhi markaasay dee annakaa qaadanaynaa dee haddaad qaadataan i raaci maysana waad iga hadheen ogaada buu yidhi diin iyo adduunya isma raacda buu ka yidhi waa nebi zaahiduha nebi ciise calayhi salaam saddexdii nin way ka hadheen baa la yidhi nebigii ayaan darrada eeg markaasay dahabkii qaateen way la socdeen way la lugeeyeen magaaladii markay u dhowaadeen bay yidhaahdeen haddaan maalin galno waa lanaga dhici habeen han ku beegno laakiin waa gaajoonaynaa way tashadeen waxay yidhahdeen laba dahabkaas sii ilaaliso midna magaalada intuu tago cuntahay noo soo qaado yuuna cidna inoo sheegin waa hagaag kolkuu ka dhaqaaqay labadii dahabka ku hadhay ilaa shaydaankiiba dhiigga bini aadamka dhex socdee ayaa wuxuu yidhi mid walba midka kaluu ku yidhi dahabkan labadeennu buu nagu fiican yahee ninkaa markuu yimaado aniguna waan la hadlay waan jeedin adiguna midida halkaa ka geli maydkiisana bahosha han ku ridno han ku aasno dahabkana labadeennu han kala qaadanno marxaba kiina uu sii socdaa shaydaanka isagana dhiiggiisii ku dhex jiro wuxuu ku yidhi dahabkan adigoonbuu kugu fiican yahee cuntada intaada soo cun ayakana u soo sumee markay dhintana dahabka iska qaado maxaa ka dhacay kula tahay meeshaas uu yimiday cuntadiibuu u dhigay isagii bay khaarijiyeen cuntadii bay cuneen iyagiina way iskhaarijiyeen nebiyullaahi ciise calayhi salaam ayaa soo maray dahabku halkii yaalla iyo saddexdoodii oo mayda markaasuu xawaariyiintii ku yidhi adduunyadii ubadkaygu sidaas ku galeen eega buu ka yidhi waa kaas halkaas halka laga hagaagaa waa qalbiga halka laga xumaadana waa qalbiga inna fi ljasadi mudqa idaa salaxat salaxa aljasadu kulluhu wa idaa fasadat fasada aljasadu kulluhu alaa wahiya alqalbi buu nebigu yidhi calayhi salaatu wassalaam waryaada buu nebi maxamed uu ina leeyahay dhegay jidhka bini aadamka waslad baa ku jirta hadday hagaagto jidhkao dhan baa hagaagi hadday baanaatana jidhkao dhan baa baanaanoo xumaan taasina waa qalbiga buu rasuulku yidhi qalbigana wax kale ma hagaajiyaan qalbiga lacag ma hagaajiso qalbiga waxa keliya hagaajiya waa markay degto ilaahay macrifadiisu macrifatullah cuthmaan binu cafaan allah raalli ka noqdee addoomihiisii addoon ka miduu u yeedhay maalin wuxuu yidhi lacagtan qaad abudar alkhifaari u gee
hadduu lacagtaa abudar hadduu lacagtaa kaa qaatana xor baa tahay buu ka yidhi xor waan ku xoreeyey abudarna markaa magaalada madiina dibaddeedu deganaa ribda meel la yidhaa oo cuthmaan binu cafaan baa ku yidhi halkaa u guur adigu waayo waa nin zaahida buu ahaa qarnigii nebigaad mooddaa inuu joogo isagu dadkan taabiciinta ee diinta ku soo gadaal dambe ka yimid ay adduunyadii la yimaadeen oo dhanna uu nafinaya isagu dharkii nebi maxamed uu kaga dhintay buu sitaa weli cariishkii nebi maxamed uu ku ogaana uu galaa cuntadii cahdigii nebiga la cunayana weli uu cunaa isagu abudar alkhifaariyi radia allahu canhu marka ninkii addoonka ah lacagtii buu la soo orday meesha ma soo dhigan nin baa lacag diidi kara soo sidaa ma ahinde ma nin baa lacag diidaya waa iska jecel lahay uu yimiday uu salaamay wuxuu yidhi amiirkii mu'miniinta cuthmaan baan salaan kaaga sidaa waan ka qaaday bal warran isaga ka warran daar alkhilaafa ka warran masjidkii nebiga ka warran muslimiinta xaalkooga ka warran markuu uga warramay ayuu yidhi lacagtana uu ii soo dhiibo wuxuu yidhi abudar u gee lacagtaas markaasuu yidhi maxaan ka dhigaa wuxuu yidhi dee ha u kaalmaysta adduunyadiisa markaasuu yidhi u celiyo waxaad ka tidhaahdaa anigu uma baahniye cid iiga baahi badan baa madiino joogtee ciddaasii ka dha buu yidhi innaga maanta lacag nin diidi karaa uu yar yahay maanta zamankan waayo waxay naga dhaadhacsan lacagtu waxbay tartaa iyaga waxaa ka dhaadhacsanayd may lacagtu wax ma tarto ka wax taro waa ilaahay baahidayda ilaahay baa ii daboolaya xaajaadkayga ilaahay baa ii quminaya waxaan u baahanahay ilaahay baa ii haya cid kale wax iima hayso lacag uma baahni baa ka dhaadhacsanayd iyaka laakiin ilaahay amarkiisaan u baahanahay ducaan haystaa salaad baan haystaa istikfaar baan haystaa qur'aan baan haystaa acmaal baan haystaa qalbiguna wuxuu ku xasilaya waa diin weeyaan adduunye maaha markaasuu ninkii yaabay war iska qaado may u celi markuu arkay inuu ninkan lacag uunan u jeedin uu qaadanayn ayuu runta u sheego wuxuu ku yidhi amiirka wuxuu igu yidhi hadduu abudar lacagtaa kaa qaato xor baa tahay buu igu yidhiye ar walaal addoonnimada han ka baxe i xoreeyoo lacagtan iga qaada buu ka yidhi markaasuu yidhi kaa qaadan maayo waxaad doonta akhri markaasuu yidhi or iga qaado oo ii naxariiso maxaan kuugu naxariistaa haddaad lacagtaa iga qaadato waan xoroobay buu ka yidhi wuxuu ku yidhi abudar dhegayso hadalkuu ku yidhi eeg haddaad adigu qaadashada lacagta aan kaa qaaday aad ku xoroobayso anna addoon baan ku noqonayaa buu yidhi marka halka adoo aad ka baxday inaan anu galo ma jecli buu ka yidhi anuu addoon xor aan ahay buu yidhi xor bas uu yaabay ninkii lacagta isagoo wadu cusmaan u keenay wuxuu yidhi waad ogeyd markaad igu lahayd hadduu lacagtaa kaa qaato xor baa tahay waad ogeyd ninkan inuu yahay nin aakhiro nin adduunye u jeeda maaha abudar alkhifaari lacagta dhaliili mayno ha shaqaysan qofka muslimka lama leh laakiin adduunyada gacantaa ku hayso diintaada iyo aakhiradaadana qalbigaaga ku hayso maanta adduunyadii iyadaa maanta adduunyadii nafuushay saxaabadu adduunyada sida faraska loo fuulo ayay u fuushanayeen iyaku adduunyada iyakaa fuushanaa innakana maanta adduunyadii bay nafuushay maanta waa ka tukan kari laanahay diintii baan ka baran kari laanahay diinteenni wakhti ku bixiya bay culimmadu leeyihiin wakhti waa ku bixin kari laanahay maxayna haysta waxayna haysta waa adduunyo adduunyada maxay kula doonaysaa adduunyadu inaad iyada la joogto bay doonaysaa hayga tagin bay adduunyada ku leedahay lamana nacayo adduunyada ha ka shaqaysan laguma leh ka shaqayso xalaal mirad noqo laakiin waxaad ogaataa adduunyadani waa balaaq aakhire ku gaadh mooyaane iyada ha ka dhigan hadafkaagii aakhirada ayayna kaala weynaan cusmaan binu cafaan allah raalli ka noqdee nin baa nebigu u yimid oo yidhi gabadh baa lay siiyey waxaan ku aqalgalana ma haysto cusmaan u taga buu ka yidhi markaa buu u yimid cusmaan binu cafaan wuxuu arkay cusmaanoo khaadimkiisa ku haysta dubaaradan faynuuskan maxaad u baktiin weyday markaasuu ninkiiba uu yaabo wuxuu yidhi ninka khaadimkiisii ku haysta faynuuska maxaad u damin weyday
may kula tahay inuu adiga lacagtii aad gogol iyo dhar iyo weelal islaanta caawa aad caroosada aad ugu iibin lahayd inaad ka heli ilama abuu yidhi iska kacay Usmaan baa ninkii u yeeray war kaale xageed u socotaa wallaahi de waxaan u socday war kale ahayd war kale meesha ka socday buu yidhi markaas maxaad aragtay maxaad u socoto de nabiga ay ka soo diray buu yidhi sallallahu alayhi wasallam oo yidhi Usmaan u tago waxaad ku tiraahdaa waxa nabi maxamed ku amray wixii caawa aan arooska iyo reerkayga aan ku aqal gelin lahaa hadday gogol tahay hadday dhar tahay hadday biil tahay hadday weelal tahay Usmaan ka qaad buu nabigu ugu yidhi de maxaad u kacday buu igu sheeg weyday de waxaan arkayaa ninkaaga Faynuus ku dagaalamaya wax bixinaya buu yidhi Faynuus baad ku dagaalamaysaa ood ku haysataa qadimkaagiiya wuxuu yidhi dhegaysa buu ka yidhi Faynuuska halkaa iska shidmaayay shaqo adduunye iyo shaqo aakhira midna laguma hayn laakiin tan adiga ku siinaayo waa tii halkii loogu talagalay ku baxday hoo qaada buu ka yidhi kiish lacag uu dhiibay israafka iska ilaalinayeen xoolahooga meeshay ilaahay ugu talagalay ku bixinayeen meesha ilaahay u diidayna xoolahooga way ka ilaalinayeen inagana aroos baa lagu leeyahay $30,000 bay ku bixiyeen aroos $30,000 bugbac fanaaniin baa loo yeedhay fanaaniin maxaa ka dambeeya laba reerka bugbac iyo macsiyo lagu dhiso 2 bilood ma gaadhaan way kala duulaan ilaahay uu kala qaadaa markiiba laana marka hore macsiyo lagu dhisay diin iyo alla ka cabsi laguma dhisin israaf baa lagu dhisay baatil baa asaas looga dhigay muslimku war muslimku dhaqaalihiisa xor uma tijaaradaada xor uma tihid waa inaad xataa cilmi albayc washiraa علم البيع والشراء علماء كانوا يويدي عمر بن الخطاب سوق مدينة انتو قالوا ورنجري لا يبيع في سوقنا هذا إلا من تفقه الدين ورياضة سوق يقع نوح كوي بين كرام مجرب عمر ورنجري إلا نين مسجد النبي انتو تقي علم البيع والشراء علماء كصبر تيمو يعني إنك أنا ما أنت عيد والبقى نعصب بالوضوء تشاين يا تايلاند بلغوا الدولي هبريه بقى سعودة كلها تشاين هاو سعودة حاجة نسعنا والمؤمن وحال دونا هنا نقطة مؤمن لا بد أن نودع كوكوتا إلا أدوية هذا كويعو إلا آخر هذا كويعو آخر هذا هنا أدوية كوسجن أدوية وإنير وحن جوجنا إنير ولا ليال إنتاير إن جوجنو إلهي هكذا بغنو ودين هكذا قادنو ودين تنا هم برنو ودين تنا هكذا شقينو وزمن هذاك بالجرا زمن كيل الجرا المتمسك بدينه كالقابض على الجبر أبو نبي قولي والزمن النبي محمد سيشاقي كون يافر بقوله سنة كهر نيجا دين تمالين تاري هذا وان حج السن وحاوكد دقنان دونا نندا معلو دي بيبو رسول كيولي بالشدة تكون نوشا ما انت ايق ومجتمع خير كوغو يرادي شركو بطي ما شادو بحضا باي شادو حيكون عيسى ما وحي إلهي كفرحية بس وحي إلهي كعريسية مجتمع ومجتمع قفكو هدوير هذا ما أنت صنع النبي كفر عليك وأتكان يسألوا قبصدوا إلهي يقول نبي ريمو يعني مركز زمن هذاك بانكو جرنا وحن كقبت بعدين ومحي رجوع إلى الدين إن الدين تنوصل نقولنا ودذلك الدين تاع علماء مروا بين وقوب باقيان مساجد اللي قلنا هذين أيو مراكز اللي قلنا هذين أيو مدارس اللي قلنا هذين أيو اجتماعيات الله قبنا أيو ومد الله كل لو فكر أيو وردذلك الدين هذا ما أنت عالم كالسعوداء للرباع عامده إنه إن علماء أنت قرب جوكسته أن ملك اليهود جسد إن شاء الله هذا تام قدونا ذلك الدين تا بس دقيستيال وناكسن ما نقولنا يا دقيستو وناكسن لو حكوا وناكسن دقيستوا من الدين ويان لكن وحال إن النقطة أديك الله قربا إن الدين تقيبت الله كقالته أتكقاذن كرتا صحابة رسولكو نول بسلاحية دي لهي وقليي ومدو كو أنفعي كي علم لها علمك ومدو وحكو تري كي دغال لها دغالو ومدو وحكو تري كي رغنما لها رغنما ومدو وحكو تري كي وجاهد لها وجاهد دي سوء ومدو وحكو تري اسماء بن عفان عمر بن نبي قدري مكة مركز صلح الحديبية وكا عذر دارت عمر وعدانيga may buu Usmaan baa ku munaasaba buuri Usmaan baa ku munaasaba Usmaan buu nabigu yiri dal waa runtii Usmaan adigu tag
khaalid bin waliid geesinimadii raganimaduu lahaa ummaddu wax ku taray maalintuu soo islaamay buu nebiga seefta u keenay seeftan iga qaba buu yidhi ilaahina dembi dhaaf ii weydii maxaan kaaga qaadaa seefta ii sheeg intaasoo muslimiina ku laayay buu ka yidhi kaa qaadi maaye intaad muslimiin ku laysay in ka badan inaad cadowga ilaahay ku laysaan kaaga rajayne qaada buu yidhi seeftoo ilaahay diintiisa u jihaad raganimadiiba xagga kale loo bedelay bas kii caalimka ahaa cilmigu ummadda ku anfacay kii dhaqaalo lahaa dhaqaalihiisu ummadda ku anfacay zamankii nebigeenna calayhi salaatu wasalaam waxa uu nebigu diyaariyey ummad nin walba salaaxiyadda ku jirta loo isticmaalayo diinta dadaalkeega marka innakuna kulligeen insha allahu tacaala khayr baa inaga muuqda khayr jacayl baa inaga muuqdee dee insha allah dadaalka diinta dhinac kastaba dadaalka diintu waa leeyahay wallaahi waan runtaan inii sheegi macallinka qur-aanka dhigaya dadaalka diinta qaybtiisiibuu ka hayaa sheekha masaajidka darsiga ummadda marinaya dadaalkii diinta qaybtiisiibuu ka hayaa jamaacadada ilaahay dartii u socda qaybtoodii bay diinta ka hayaan muxsinka dhaqaalihiisa masaajidda iyo madaarista ku dhisaya diinta qaybtiisiibuu ka hayaa qofka muslimku diinta intuu ka qaadan karo uu ka qaadan karaa wactasimuu bixabli illaahi jamac baa la sheegay jamac hal nin kastoo muslima diintaasi wax waad u qaban kartaayo war u qabo kelimadda wanaagsan buu nebigu yidhi waa sadaqad kelimadda wanaagsan dariiqa muslimiintu ay maraan ninkii ka gooya geedka buu nebigu yidhi hee jannaduu galay buu rasuulku yidhi jannadaan ku arkay buu yidhi haweenaydii masjidka nebiga marka laga dareeray imanaysay ee ka qaadaysay maaragtaanay waxa masjidka nebiga ku daatay ka qaadaysay markay dhimatayna waa laga qariyo nebiga looma sheegina waa la aasay markaa buu nebigu yidhi jannadaan ku arkay buu yidhi jannadaan ku arkay jannadaan ku arkay maxaad iigu sheegi weydeen buu nebigu yidhi khayrku yaryaraysi ma leh marka waan inagu dheereeyey in sha allahu tacaala wixii wanaag iyo khayr soo dhex marana ilaahay bay soo dhex mariyey anigana miisaanka xasanaadka allah ii saaro ikhlaaskana allah noo wada ziyaadiyo culimmadana soo dhaweysana waxaan leenahay jazaakum allahu khayr sheekh maxamed waxaan leenahay margeysa anu marti kumahiya waan deganahay ya deganahay ma sha allah ciyaalkii reerkii oo dhan baa jooga marka allahna naga wada raalli noqdo kulligeen hada وصلى الله على سيدنا محمد بسم الله الحمد لله ثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وعاف مبتلانا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل